السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دواد ورك برقنا warbaahintii raawin qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqonaya qabanqaabada ugu dambeysay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo laga dareemayo magaalada Laascaano wasiirka gaashaandhigga oo hambali u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha Masar oo farriin u soo dhiibay madaxweynaha Soomaaliya أبي أحمد أو قاضي مركزي وقضب كدبة أبي أحمد أو قاضي تلعب مركزي قلاسة سكر إنساه تلك يوتيوبيا soo gudbinta warkan waxa idin suura galiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba markale markaasi barqa wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay haddii aynu ku bilaawno waxaa saaka magaalada Laascaano ee xarunta maamulka gobolka Sool si weyn looga dareemayaa diyaar garowga soo dhaweynta la xiriirta markaasi ra'iisul wasaaraha oo halkaasi tagaya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Laascaano saacadaha soo socda maanta waxaana halkaasi ku sugan labadii maalin ee la soo dhaafay wafdi ka tirsanaa hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka oo hordhac u ahaa safarka ra'iisul wasaaraha oo ku tagay Laascaano amniga guud ee deegaanada maamulka ku meel gaarka ah SSC Qaatumo gaar ahaan magaalada xarunta ah ee Laascaano ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana wadooyinka lagu arkayay markaasi ciidamo aad u fara badan wadooyinka waaweyn ee markaasi fagaarayaasha magaalada Laascaano ayaa sidoo kale lagu hardhay sawirka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya waxaana xusid mudan in socdaalka Xamse ee Laascaano ay si weyn uga soo horjeedo maamulka Somaliland booqashada la filayo inuu maanta ku tago magaalada Laascaano ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed oo ku tago magaaladaasi in ka badan muddo 50 sano ah markaana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa hambali iyo bogaadin u diray saraakiil xigeenada alifleyda dableyda markaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskooda xuska markaasi 65 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan maanta oo ah 12 Abriil wasiirka ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay lafdhabar u yihiin difaaca qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo markii la aasaasay 12 Abriil sanadkii 1960 ilaa maanta ay si geesinimo leh uga dagaalamayaan dadkooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa geesiyaal naftood hore difaaca dalka diinta iyo dadka Soomaaliyeed alle waxaan uga baryaynaa inuu ka aqbalo shahaadadooda kuwa dhaawacana uu siiyo caafimaad degdeg ah iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka iyagoo si buuxda u taageeraya dadaalada ay ku jira markaasi ciribtirka kooxaha markaasi al-shabaab iyo markaasi oo dhibaatada ku haya dalka sida uu sheegay wasiirka waxaa waajib qaran ah in la garab istaago ogeysiyaasha ciidanka xoogga dalka oo nafurnimo markaasi ugu jira howlgallada markaasi lagu xoreynayo deegaanada markaasi haystaan kooxda shabaab ayuu yiri wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo hambali u diray markaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradoodii markaana wasiirka arrimaha dibadda iyo socdaalka dalka Masar Dr. Badr Abdal ayaa markaasi farriin uu ka siday madaxweyne Cabdi Fataax al-Siisi gaarsiiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu ka qayb galayaan markaasi madasha diblomaasiyadeed ee Anatoly ugu horreyn wasiirka arrimaha dibadda ayaa markaasi u gudbiyay sahan markaasi salaan uu uga siday al-Siisi madaxweynaha Soomaaliya isagoo u rajeeyay in la sii wado wada shaqeynta labada dawladood ee dhinacyada amniga xasiloonida iyo nabadda ee markaasi dabaalida Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa xaqiijiyay in Masar ay si buuxda uga go'an tahay taageerida midnimada iyo markaasi wadajirka dhuleed ee Soomaaliya iyo hay'adaha markaasi qaranka iyo markaasi dadaalada lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya waxa uu cadeeyay in Masar Soomaaliya ka taageerayso
ka hortagga waxyaabaha loogu yeero argagixisada iyo xagjirnimada xilligan xasaasiga ah iyadoona markaasi carabka ku adkeeyay inay ka go'an tahay inay markaasi waa Soomaaliya ay siiso nooc kasta oo taageeraha si loola dagaalamo kooxda shabaab iyo sidii markaasi loo heli lahaa amni iyo xasilooni madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa ka codsaday in salaan uu ka gaarsiiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Masar iyo markaasi mahadcelin ballaaran oo ku aadan doorka taageerada ee Masar ee ku leedahay dalka iyo heerarka kala duwan bal markaana haddii aynu eegno dibadda dowladda Itoobiya ayaa jimcihii wasiirka markaasi wasiir u magacowday hogaamiyihii hore ee fallaagada ahaa ee kana tirsanaa maamulka ku-meel gaarka ee Tigreeda kaasoo dhowaan xilka laga qaaday tallaabadan ayaa dhalisay cabsi laga qabo inay sii horiso kala qaybsanaanta si markaasi kordhaysa ee ka jirta gobolka waqooyi ee dalkaasi gobolka Tigreega ayaa wuxuu markaasi la daalaa-dhacayaa dhibaatooyin ka dhashay dagaalkii 2 sano socday kaasoo lagu soo afjaray heshiis nabadeed oo lagu gaaray markaasi 2022 isla markaana horseeday dhismaha maamul ku-meel gaar ah dagaalkaasi waxa uu noqday mid ka mid ah kuwa ugu dhimashada badnaa qarnigan iyadoona qiyaasaan ay ku dhinteen ilaa 600,000 oo qof dagaalkan waxa uu dhex maray jabhadda Tigray iyo ciidamada federaalka Itoobiya oo markaasi garabsanaya maleeshiyaad markaasi maxalli ah iyo ciidanka Eritrea siyaasigan xilka markaasi laga qaaday horaantii bishan ayaa waxaa lagu bedelay hogaamiyaha xisbiga Tigreeda ee markaasi loo yaqaano markaasi waa Debretsion Mekel kadib khilaaf siyaasadeed oo xoogan oo soo kala dhexgalay hoggaanka TPLF hase yeeshee jimcihii shalay ayaa Addis Ababa u magacowday markaasi taliye sare oo u qaabilsan ra'iisul wasaaraha arrimaha markaasi Geeska Afrika iyadoo la siiyay darajada wasiirnimo sida lagu sheegay qoraal laga soo daabacay barta X markaasi intaasna waxaan kusoo gabagabeynaa warkii barqanimada la socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan ah Maskale Maxamed Bariir Xamed ee farsameynaya tan kula toddoba sidaas nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhagayso idaacadda Hiranweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daaraca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net Radio Hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa uu wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiranweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barka internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com